Markale kulan wanaagsan. Madaxweynaha dowladda Turkiga ayaa cambaariyay go'aanka dowladda Mareykanka ay ku doonayso inay hub u iibiso dowladda Israa'iil. Erdogan ayaana mar kale ku celiyay cambaaraynta go'aankii ay dowladda Mareykanka iyo dowlado kale ugu rareen safaaradahooda magaalada Qudusta barakeysan ee ayna ugu aqoonsadeen magaalo madaxda Israa'iil. Talaabadaas oo dalka Mareykanka iyo dalal kale ay qaadeen horaantii sanadkii 2017 ayuu Erdogan ku tilmaamay mid sii hurinaysa colaadda u dhaxaysa Falastiin iyo Israa'iil. Wuxuuna ku tilmaamay go'aankaas waa mid sii kordhinaya damaca Israa'iil ee ah inay sii qabsato carriga Falastiin. Madaxweyne Erdogan ayaa Israa'iil ku tilmaamay kuwa dhiig-yacab ah. Wuxuuna dalkaasi cambaarayn dusha ugu tuuray inay yihiin kuwa dhiig daadin moogi wax kale aanan lahayn. Madaxweyne Erdogan oo hadalkiisa sii wato ayaa wuxuu yiri waxaan aragnay saxiixa Biden ee uu hub ugu iibinayo Israa'iil, hubkaasi oo ah 150,000 oo hub ah. Erdogan ayaa wuxuu yiri Biden wuxuu taageerayaa daadashada dhiigga shacabka Falastiin, wuxuuna garab u yahay argagixisada Israa'iil. Waan cambaaraynaynaa go'aanka dhiig daadinta lagu taageeray ayuu yiri. Dib markii ay soo baxday cambaaraynta madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan, hadal markii loo eego go'aanadii hore isbedel uu ka muuqdo ayuu kula hadlay Joe Biden warbaahinta dalkaasi. Joe Biden ayaa ku soo biiray baaqyada